السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal kulligiina waa nii salaame meel kasta aad joogtiin. magacayga waa Faysal Cabdullah, maxaa yahay orthopedic spine surgeon oo dalka Sweden iyo Dubai. aad ugu farxay inaan ka qayb galo association kan oo dhacayo for the orthopedic surgeons oo Soomaaliya. maxaana rab lahaa inaan ka hadlo awareness of scoliosis in Somalia. functional scoliosis maxuu kala baxaa marka ilmaha lugahooda kala dheer yihiin. structural scoliosis kana waa dusha markuu caadi u qaloocan yahay. structural scoliosis marka saddex qayb oo kala sii baxda. waa qaybta koowaad maxaa la dhahaa idiopathic scoliosis, qaybta labaadna maxaa la dhahaa neuromuscular, iyo qaybta saddexaad congenital. congenital waa ilmaha marka lafahooda ay kala bixi waayeen waxay ku dhashtaan waaye. neuromuscular waa neuromuscular oo yani diseases oo cerebral palsy-ka keeni karo ama spina bifida ayaa dusha ka qalloocin karo. kan ugu koowaadna oo ugu badan 80% waa idiopathic. idiopathic maxaa laga wadaa unknown waaye, ma la ogo waaye ilmaha dusha aga qaloocanaya. ilmaha intay dusha si xun aga qaloocanin maxaa muhiim ah in la sameeyo wax la dhaho screening oo la dhaho Adams test, bend forward test oo dushooda la arkaado sidee dusha aga qaloocan tahay. maxaana loo sameyn karaa testkan iskoolayaasha ama meesha dhakhaatiirta ay joogaan. Adams testka marka la sameeyo ilmaha oo dusha ay qaloocan yihiin maxaa loo cabiri karaa wax la dhaho scoliometer. scoliometerka marka dusha ayaa laga saaraya, maxaana la fiirinaa dusha halaho degreega oo aga qaloocan yahay more than 7 degree. maxaa waa ilmaha waana loo sii diraa dhakhtarka lafaha. screening testaha aad ay muhiim u tahay, iskoolayaasha ayaa lagu sameyn karaa. waana wax oo saas qaali mu aha scoliometerka. maxaan jeclaanahay wadanka kulli inaa lagu faafiyo sida oo looga hormaro ilmaha haddii ilmaha oo riski group ku jiraan oo dusha si xun aga qaloocan karto. haddii oo dusha ilmaha si xun aga qaloocato oo screening ay soo marin dusha si xun ayuu aga qaloocan karaa. marka waa very serious problem ay ka imaan karo, cardiovascular problems, neefta dhib u keenayso iyo dusha aad u xanuunayso. marka waa muhiim inaa laga hormaro. marka treatmentka waa laba qayb. qaybta koo waa ilmaha oo dushooda ka qaloocan more than 25 degrees waa brace treatment ala siina up to 45 degrees. cob angle-kooda brace treatment is enough. ilmaha oona cob angleskooda more than 45 degrees maxaa waaye problem ay ka heli karaan neefta iyo cardiovascular marka qalin waaye. marka maxaa fiican inta qalin la gaarin in brace treatment lagu dadaalo oo braceka very simple treatment oo waxaan karo insha Allah. marka taas waana lagu dadaalaa. very important awareness of scoliosis oo dadka inaa la fahamsiiyo ilmaha dusha inta si xun aga qaloocanin inaa laga hormaro.